بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو أنا ونكسن لمان غيرت سوشيال ميديا إجراء سعوتا يوتيوب وبسيط يدا يولي برت فيسبوك عن كل هاي محمد ظاهر سوري ولا الله يمر بوجوكتان حبيبي ونكس وقتي عادي وعنا ذو حرجينا إن شاء الله سوماليا أبا هنتاي ما أنت يسبدل يبدبادي أبا هنتاي إن ذلك اللي بدباديو مر بوجوكتان نحن الله وقتي عادي وعنا ذو arrimo dhowran ka hadlaya horta Soomaaliya insha Allah waa la guuleysanayaa guushina way dhowdahay kooxdan qabyaalada iyo quranka ku dhisan ee Soomaaliya qabsatayna waa laga guuleysanayaa Ilaahay idinkiis caawa arin la yaab la idin shideeyaa ninka la yiraahdo daba casar horta daba casar farmaajo lacag siiya waa kaas aragteen gaariga iska wata 24 ka saac 24 ka saacna been iyo huwa daldala farmaajana ilma adeereeyeen cunuga Salmaan li yiraahdana waa idin sheegay hadda ka hor nin wasiir ah oo reer Puntland ah ayuu u dawmariyay xaaskiisa sida dadka reer Boosaaso ay xaqiijiyeen wax la dhageystana ma midkan bidaarta leh ee li yiraahdo Soola la baxay oo meelaha ku waash Facebookida jibinaya xildhibaanada way qaldan yihiin hebelo war aday cid ku weydiisay mala xildhibaanadan baarlamaanka farmaajo ay ka soo doortay farmaajo yaa keenay waxa keenay baarlamaanka daba casr horta eeba ku dhacday eeb weyn waxa idin dhageysiinayaa fadlan si share gareey waxa idin dhageysiinayaa naagtu qabi jiray bal waxay ka sheegaysaa ninkaas iyo waxay leedahay haddaad dhageysataan waa naxaysan ninkaas ma waalno wallahi billahi taala usu waalneen laakiin wuxuu caadaystay in qabiilka la yiraahdo hawiyaha maalinna habar gidir uu yiraahdo waxay ay jireen tuugo nacalad ilaahay ku dhacdo maalinna uu yiraahdo sheeqaal waa wada qoomuluud hadda qoomuluud inuu yahay asiga oo qoomuluud uu yahay hadda aniga kama hadlayo naagtu qabi jiray isku reerka ay yihiin oo laga furtay ayaa ka sheekeynaysa dhageysta bal naagta daba casar dhageysta dhageysta aniga cid uma socdo qof kale ma socdo waxaan u socdaa ninka la yiraahdo Cabdiraxaaji waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inay ila ogaato ceebkiisa iyo waxa aniga noloshayda ugu soo sameeyay dadban ayaan qabiilin kaleera Cabdiraxaaji waxaa loo yaqaanaa daba casar dadban sana aan qabiil waxaan kala soo kulmay nolol aad u xun nolol aad u qadaran iga furan markii ugu dambeysay finally markii kolkaydu iga furan muddo kadib waxaan go'aansaday inaan arrintan aan kiid gareeyo laakiin waan kiid gareyn waayo waxaan u kiid gareeyay waxay sheegaysaa ilaah baa og laakiin waxa idin sheegaya si fiican dhageysta Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay badbaado Soomaaliya qabiil gaar ah inuu qaato xukunkii oo dhan bal fiiri ilaahay idinku dhaarshay farmaajo ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre war qabiiladii ugu waaweynaa ee Soomaaliyeed waxay rabaan kaygaan mid ay xil ka qaadaan mid ay dilaan mid ay xabsi geeyaan waxaasna aqli ma aha waryaada qabiila Soomaaliyeed oo waaweyn shalay maalin hore waxay ahayd sacad oo dhan wuxuu ka mamnuucay inuu xilalka ka qaado uusan xil siinin sacad habar gidir farmaajo xilalkii oo dhan uu ka qaaday maanta wuxuu soo jeestay ceer maanta waa ceer habar gidir taliyay ku-xigeenkii guud ee nabad sugidda Soomaaliya ceer xilku ka qaaday taliyay nabad sugidda eelaboorka xirow xilku ka qaaday ilaahay kuma samadiiday agaasimihii wasaaradda agaasimo waxiidkii qaybta maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha ceer xilku ka qaaday ceer oo dhan xilku ka qaaday biri wuxuu soo jeesanayaa Islaayban birita wuxuu soo jeesanayaa habar gidir Islaam maalinta kale wuxuu soo jeesay wuxuu rabaa dadkii inuu madax ka wada jaro sida Maxamed Siyaad oo kale Maxamed Siyaad barre 22 sano wadanka xukumayay farmaajo waa adeerkiis fiiri Soomaalidu waxa la rabaa wixii hadii qabyaalad ay noqoto waa wareey adeer dadku waa xur waa la hadlayaa farmaajo baarlamaanka doortay fiiri maanta hawiye iyo daarood iyo digil iyo mirifle iyo dir yaa iyo beesha shanaad cid dagaalsan ma jirto Soomaaliya laakiin dagaalkii wuxuu ku soo aruuray xifaaltan siyaasadeed oo u dhaxeeya hawiye iyo daarood dagaalku wuxuu ku soo aruuray ee Soomaaliya ka jira xifaaltan siyaasadeed oo u dhaxeeya hawiye iyo daarood shalay Xasan Sheekh Maxamuud joogo wadanka oo madaxweyne ka ahaa oo 4 sano maamulay Xasan Sheekh Maxamuud dadka inay kala xishood badan yihiin qofka marka libintiisa siisid waa lagu diidayaa waxa lagu leeyahay reerkan farmaajo uu ka dhashay Mariixaan ama systemka koro daarood kulli waxay ku leeyihiin حسن الشيخ محمود حمو موسى قبل والإله إذا كل داري شيء فيري حسن الشيخ محمود
asoo ka cararayo in la yiraahdo waa hawiye ayuu hawiyihii madax uu kaga istaagay dadka inay kala xishood badan yihiin hawiyihii ayuu madax kaga istaagay sheekh shariif ayaa si sharci ah wuxuu hawiye u siiyey hiiraan inay laba gobol tahay hiiraan inay laba gobol tahay sheekh shariif ay bixiyey xasan maxamuud diiday waxa uu u diidanaa yaan lagu arkin qabiilka ka dhalatay hawiyaha inaad sara marinaysid jubbaland oo ogaadeen iyo daarood iswata dhibaatada ay ka geysteen aad aragteen oo kenyaan la keenay oo marixaanka farmaajo uu ka dhashay lagu xasuuqay oo heer la gaaray agaasimiyaashii la bixiyey ee jubbaland 22 ka agaasimo 18 kamid waa daarood 18 kamid waa daarood nin luga dheer la yiraahdo hawiyaha ummatalo madaxweyne ku-xigeenka labaad laga dhigo maqaar saar ah wuxuu qabta malaha meel ciluu joogaa wuxuu qabta malaha xifaaltankii siyaasadeed ee daarood iyo hawiye ka dhaxeeyay wuxuu dhalay wasiiradii golihii wasiirada la soo dhisay fiiri Soomaalida commentiidin oo akhrinaya Soomaalida runta ma jecla wasiiradii la dhisay hadda koorna waa ka hadlay dhowr mar golihii wasiirada la dhisay si loo qaybiyay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waxa la siiyay Puntland oo daarood la siiyay oo harti la siiyay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waa koow wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga oo lagu daray Puntland la siiyay waa labo wasiirkii wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta waxa la siiyay harti fiiriya wuxuu isleeyahay dawladda maxamed siyaad harti iyo majarteena burburiyay farmaajo adeerka dawladdiisa harti iyo majarteena burburisay ku qancay Puntland qancay xilalka wasiir ku-xigeenkii amniga wuxuu ka dhigay majarteena wasaaradda amniga nin maqarsaar oo harti abgaal oo maqarsaar u dhiibay laakiin ku-xigeenkii ah nin majarteena ah Soomaalidu inay runta isku sheegto ma rabto Soomaalidu inay runta isku sheegto ma rabto hawiye marka waa la wada qadiyay wax ay haystaan jireerweyna la qadiyay maxamed siido u jeeda digil imrifla la qadiyay shariif xasan fiiri wax irba idin sheegay shariif xasan oo nafta ka sii baxaysa yaa nafta ku soo celiyay shariif xasan oo nafta ka sii baxaysa oo sii baabaayo jawaariya la diiday shariif xasan wasiirada wata la magacaabay shariif xasan oo aad ogtay inuu qaa'in yahay qaa'in kala jirin wasiiradiisa ayaa la qaatay waxa la diiday jawaari shariif xasan maxaa loo qaatay mataqaaniin shariif xasan islaantu qawwa mursade dadka runtu ilaa isku sheegaan waa Soomaalidu runta marabto shariif xasan islaantiisu waa mursade waa habar cayn waxay isleeyihiin in xasan cali qeyre isleeyihiin oo wasaaraha xasan cali qeyre ay isleeyihiin sidii loo siiyay xilka markaas wuxuu ku leeyahay daba casar iyo cunugan ogaadeen cabdinaasir la yiraahdo daaroodka ah cabdinaasir ka ogaadeen madaxa xiran iyo waxay ku leeyihiin maxaa mooshin loo sameynaa war farmaajo baarlamaanaad doortay xildhibaanaad doortay xildhibaanadii waxay arkeen in waxaan ay ku dhisiin qabyaalad ma waxaan fiirsan karnaa maalin walba wiil iyo sodog iyo abtigiis wiil dawladnimada masaasa Soomaaliya dawladnimada marixaan ee farmaajo ma noocaasa war aniga waxaan ahay ninkii ugu horeeyay ee bilaabay inaan farmaajo naqdiyo wax kale kuma naqdinina wallahi billahi tallahu idin dhaarna ilaahay iga sareeyay farmaajo waa qabyaaladiista ninkan meesha uu keenay madax xiran oo mursadaha ah ee Norway in lagu duro oo maleynay liira xasan cali qeyrane mursada ma ah waa ku qaaraan mursadaha berigi maxamed siyaad barre isku reer ahaayeen nin reexaan u ahaa kursiga hawiye ninka ku fadhiyo waxa xasan cali qeyre la yiraahdo war ummadii in la baabiyo la yiraahdo war adiga systemkii dawladnimo wax dekada muqdisho fiiri dekada muqdisho waxa la magacaabay qaybtii maaliyadda wixii habar gidiro meesha joogo dhan waa laga qaaday wixii habar gidir saddex nin oo harti oo reer Puntland ah Puntland maxay ku leedahay dekada muqdisho Puntland adaa ku weydiiyay waxa laga dhigay gudoomiyaha Gaaljacal okay Gaaljacal waa hawiye waa okay fiiri ahadlina ani leedahay see ani oo aamusa fiiri Gaaljacal okay waa okay Gaaljacal laga dhigay war ilaahay idinku dhaarshay Soomaaliyeed war Soomaaliyeed Gaaljacal laga dhigay okay muxuma Gaaljacal waa gob waa nasab waa dad hawiye ah okay abgal maxaa laga siiyay mataqaaniin laba xubnood xawaadle maxaa laga siiyay labo mursado maxaa laga siiyay saddex okay mursado la siiyay waa urudkaawi saddex laakiin mudulood fiiriya laba laga siiyay sheeqaal iska dhaaf balcad iska dhaaf wixii kale iska dhaaf saddex xubnood waxa laga siiyay harti mursado saddex la siiyay hartina waxa la siiyay saddex war harti oo reer Puntland ah maxay ku leeyihiin degada muqdisho qabyaaladiista tahay leedahay war maxaa qabyaaladiista ku ah qabyaaladiista maxaa ku ah
gabar abti aan wahayo mursada oo hadda daawanayso guul farmaajo leedahay war maxaa guul farmaajo ah garabkiisa ilaahay ka baxay nin garabkiisa ka baxay abti meelaan ku inkaara rabtaa gabadha waa mursada abti oo ah war fiiri mursada wax siiyay war mursada wax asiyo ceeb ma mursada waa hawi wax asiyo laakiin muxuu wax ku siinaa ma habar gidira la dulmina ma sheeqala la dulmina ma abgaal la dulmina ma gaal jecla la dulmina war mursada yaa dulmi jiray fiiri xasan sheekh madaxweyne shalay mursada ma la dulmiyay ay shakhsiifam madaxweyne ahaa mursada la dulmiyay mursada lama dulmin dadka inay isku arkaan ma in ay kala dulminaayo adiga mursada wuu istaahilaa inuu xilka qabto waa okay waay war laakiin mursada xasan cali khayrow harti oo puntland ah say ku dhacday in degada muqdisho ay maamulaan markii baarlamaanka ay fadhiisteen Nairobi madal lagu dhisane waxa leeyihiin qaa'imiin waay Ethiopia u shaqeeyaan Mareykan u shaqeeyaan idinka Ethiopia u shaqeeya Ethiopia boqol marna waa idin sheegay Ethiopia ninkii ugu horeeyay soo galiyay Umar Xaaji Masal uu ahaa oo nin Mareykan oo farmaajo adeerkiisa ninkii ugu horeeyay Soomaaliya Ethiopia soo galiyay Umar Xaaji Masal uu ahaa goorma hawi Ethiopia keeneen Ethiopia hawi intay isku arkeen ma is arki karaan Ethiopia hawiya heshiisa cid ku tiraado abgal Ethiopia heshiisa war abgal Ethiopia xadna ma wadaagaan xuduudna ma aha waa waxa xasan sheekh maxamuud daaqada kaga saarteen waxa daaqada kaga saarteen xasan sheekh maxamuud Ethiopia intuu Ethiopia iyo hawiya ma waligood iyo allahood naqda heshiis war Cabdirasaaq ana sii shargaray fiiri Ethiopia iyo hawiya goorma heshiiyeen hadda waligood daarood iyo Ethiopia heshiis ay كلينك الشناد واحد جوجو ودارات وقاعدين عبد محمد إلي ما أبرقدر ونقد مسأب قال أما شيء قال أبتيالهم على المحاولة واحد وضان وحان إدي شيء وحان صعدة وواح قبيالة ديتن قبيالة دنا ووحن إذنك إذك قبيالة بدن مجرو وقاعد فرماجو ولعي والله بالله ترى فرماجو ولعي أثاني إسريدي به ما يرو بحكم بإي أرض فان ميل مجارو عبد الرزاق آدم كو سلاميا كومنتيدو اخرنايا فان ميل مجاراي ما انت قلنا دا فانتد او بين اي شيكتد او روايد اجيد ابتيالو مع محمد سياد بري سو روايد وجري جري او بين و شيغي جري او قيلين جري هير waxay gaarsiisay in quraanki kariimka aayado uu inkiro oo yiraahdo thuluth iyo rubuc iyo majraan idinkana waa u sacabtumayseen fiiriya war qofka markuu qalad sameeyo saadiyo aadan ku salaamaya saadiyo maxamed roobl abti واكو سلام فيري قفك وحال راه مركو قلد سمينات تراهدان قول قفكاس iyo qofkaas wuu qaldan yahay qalad buu sheegay madaxweynaha wuu qaldan yahay laakiin idinka ma dhaheysaan kuwa iska dhageysanaysa meelaha ka hadlayo lacag iyo shilimaad la siiyay iyo wax qashin ay iyo daba casar oo 24 saacad ogaa jirteen wuxuu sheegi jiray islaantiisana ay leedahay waxa igama daro fiidiyoga dib u raac barfilkayga dhageyso ilaahay baan ku dhaartay waxay sheegaysaa waa naxaysaa inuu gadaal iga mara maahay waxaas oo kale waxaan ku hadli karaa ma waxaas dhageysanaysan oo farmaajo shilimaad kombiyuutar uu ku gato u soo diray inuu Salmaan leeyahay insha Allah oo meelahan Turkiga joogo wareersan oo $1,000 loo soo diray bishii iyo waxaas dadnimo ma aha waxa idin leeyahay wallahi farmaajo inuu Soomaaliya hod kurada maahayn waligiis Soomaaliya ma badbaadinayo Soomaaliya orta ogaada maanta way ka gudubtay xilligii qoriga la isku qaadin jiray oo la isdagaali jiray meeshan baarlamaana farmaajo soo doortay baarlamaanka yaa ridaayo waa la ridaa xasan cali khayr iyo farmaajo waa la ridaa anay khayr wuxuu yahay alif iyo ba ma ogiba iga dhaaf khayr iyo warkiisa kuma jira khayr warkiisa hadda ma bii xisaabsan wallahi wuu xisaabsaneen war ninka ogol in habar gidir iyo sheeqaal iyo aan laga siin degada muqdisho canshuuraha oo hartiyo puntland ka bixiyo wariya farmaajo degada boosaaso canshuur ka keeni kara waa asaga nimanka harti degada muqdisho geeyay maxaa u hadlay maxay tahay waa hadlaya ilaahay wallahi billahi tala wax laga aaminsanaa jira ana waxa ilada fiiri horta mid ogaaw dawladnimadu dadka wada leh adiga xuquuq baa leedahay anigana xuquuq aan leeyahay aniga hadda xuquuqdeeda aan waayo waxaan xaq u leeyahay wariya dhageysta wariya ii sheegi kara qof sacad habargidiro xilhaaya يا إيه شيء كرقف أيرو هبر جدير أو حل هاي وأن كان يوسف جراد أو وزارة الأرماء الدبد قرشين تنا الغريب يا إيه شيء كرقف شيء قالوا ما أنت حل هاي على إيه شيء ما جرتو أبقى وحي مرها حل هاي مرها هذا محط يلدي مركب محط الله يساعد دول النمد أنا سومله دول النمد إذا كلام عليه دول النمدو ما إذا كإسكاله الساق أو سومالان استي أو أدهسن يسجوين ولا قدول من أي حمر
waxay haystaan ma laha agaasimihii radio Shabeelle hadda waxa la leeyahay waa la dilayaa gaafo waa soo wacay gaafo umrusada ah ayaa maalin wuxuu yiri hadaan ku dilin ragmi hadda in la dilaa qarka u saarayay agaasimihii radio Shabeelle wallahi billahi tala waa la dili rabaa qarka u saarayay inuu dhinto ala ka baxay meel karta maalin gaafo umrusada soo wacay in adeeyo maxay tahay waa nin abgaala biridu dhinto wallahi billahi tala gaafo mas'uulka umrusada waraa wax mal kala qariyo agaasimaha radio Shabeelle biri hadii la dilo general gaafo umrusada dilay waa nin abgaala waraa run marabtaan wariyaa run marabtaan abuukar sheekh maxamuud sky oo agaasimaha radio Shabeelle ah maalin hore waxa soo wacay general gaafo wuxuu yiri hadaad dhimanin ragmi hadaad dhimanin wallahi ragmi yiri waxa warka iga sheegtay maanta qolada sirdoonka soo waxay yiraahdeen telefoonada dhageysanaa ogaado waa lagu dili rabaa hadii yaa dilay gaafo umrusada dilay alleerana isoo ugu soo adeegsaday wax runa marabtaan wallahi billahi tallahi hadii abuukar sheekh maxamuud biri baahi uu dhinto murusada mas'uulka ah oo gaafo waa handaday oo hadda nool waa inaad gaafo wacdaan aad u sheegtaan muxuu u handaday abuukar sheekh maxamuud iskaay muxuu ka biyay dawladnimada waa noocaas maalinta ka horeysa abuukar sheekh maxamuud abgaala waxa handaday sanbalooshi waryaada idinka dhaxdiina la isku adeegsanaya farmaajo wuxuu inuu niga faa'iideysto oo dadka israayaan dadka dilaan dadka isbaabiyaan waxaas waa qalad waa qalad wallahi billahi tallahi nabay idin sheegaynay abuukar iskaay waxa la qorsheeyay in la dilo agaasima radio Shabeelle ah agaasima radio Shabeelle in la dilaa la qorsheeyay kow qambalaf wallahi maalin hore waxa soo wacay general gaafo oo dhahayo hadaan ku dilin ragmi maanta ciidamada sirdoonka soo xiriiraan telefoonada dhageysan meelba waa lagu dili rabaa ogaaw iska taxadir maxaa isku soo beegay marka handadaadii shalay gaafo iyo dilka maanta leeyahay waa lagu dilayaa maxaa isku soo beegay ma sheegi kartaan laakiin ogaada qolada qorsheynaysa dilkiisa waa la ogyahay maalin ilaah waraa hadda intuu farmaajo yimid meeqa general la dilay meeqa qof la dilay meeqa qof la dilay soo ma ahayn generalkii abgaal shibis lagu dilay meeshii lagu dilay maalinta kale shaahso kuma cabeyn xas cali qayre hantileerku guud shil wax dhacay barlo ilaa hadda hantileerka farmaajo wuxuu leeyahay leekeen wala tooganayahay wala tooganayahay wala dilayahay waraa ma hantileerka wax dilay billahi alaykum بالله عليكم ما انت اوركا واحد دلي سوماليا ما انت اسقطا سوماليا ما انت waxay u baahantahay badbaado ما انت waxay u baahantahay cadow ayaa Soomaaliya qabsaday cadow soo jireen ah ayaa dadkii gacanta ku dhigay qanbalaf dhab cadow soo jireen ayaa gacanta ku dhigay dadkiyo waxa la rabaa cid walba in allaale idii hatta xilligii maxamed siyaad barre محمد سياد برا عدي واحد كشك تحت إلا الدلو أنا اللي حرام حسب الدولة نمع روح الحلقة إنه ودي بتين حويه ورنيه محيطها هاي أنا واحد بليا بنعمل كل يجري ده كم مقدشات دجنوا على عرفتين 6 مليون 4 مليون لا 6 مليون قف وضنيا اللي جواي نك عبد واحد أكيد كنتنا وضنيا هكذا وضنيكم وضني كم وها وضني عبد واحد أكيد كنتين ممت كانوا وها عبد واقو يا رأييديو ورمريحان قف كلامه ويسيرو فرماجة حد وحاليا بنا سيد نك لوجو مش حلاي عبراج يجيا برديس يجيا أيديس يجيا هو مو حكلا ويسين وركان واقعين مد كان دل كانوا يبسنيا دد كانوا يبسنيا دد كانوا ولاينيا دد كانوا وحرو إنه لايو مد ودلو مد وحرو مد وإيشك هذا اللي قال ورياد دغيست هبل جدير راه انا هذا عاود هبل جدير سف يعني دغيست هبل جدير دغيست waxba idii sheegaya ma hore waa idii sheegay horta hebel gidiray dadka markay tolo waayaan way wareeraan aniga horta hebel gidir waa gartay hebel gidir horta waa la hadlayaa si shirkariya hebel gidir waa la hadli doonaa laakiin waxa la yaabanahay hebel gidir abgal waa gartay waxay la dirreen maxamed siyaad la dirreen hada sheeqal maxaa lagu haystaa farmaajo sheeqal muxuu ku haystaa waa faamil ah kii sheeqal waxa lahayo uu ka qaaday sheeqal wuxuu yiri waxba lama siiyay marka waxa la yiri wadaad shaq abuukar la yiraahdo fiicnay maqlaa waxba idin sheegay wadaad shaq abuukar la yiraahdo adeerkay ah oo bari dhaxdaas u magacaabay la taliyaha arimaha diinta farmaajo u magacaabay oo adeerkay ah waxa la yiri waa sixirow ana waxa la yaabanaaba markuu la taliyaha hadda waa nin sheeqal reer qotba shaq abuukar la yiraahdaa si fiican u maqlaa wuxuu u magacaabay la taliyaha arimaha diinta hadda ninka waa nin iska qiila oo iska qiilaaliyay hadda ani waxa la yaabaa nin iska qiila markii la taliyaha arimaha diinta laga dhigay waxa la yiri ninkaas
adeerkay ah oo la taliyaha arrimaha diinta faal buu dhigay faalka uu dhigay waxa u soo baxday habar gidir wax xilka hay in laga qaado qambalaf abgaal in la cabriyo lana sasaba laakiin la caburiyo shiiqaal inaan wax xil loo dhiibin waxaa la yiri dowladda haddii shiiqaal ay soo gasho hadii dhahay ma taqaaniin shaq abuu karo nin shiiqaal reer qutub ah wala taliya arrimaha diinta loo magacaabo wuxuu yiri haddii shiiqaal ay dowladda soo gasho dowladdaada way dhacaysaa macnaha muxuu waxaas u sameynaa ma taqaaniin ninka asaaba shiiqaal ka dhashay shaq abuu karo asaaba shiiqaal ka dhashay muxuu u sameynaa waxaas ma taqaaniin macnaha in la rumaysto hadduu yiraahdo shiiqaal xilal badan u dhiib xilalku waa inaad u dhiibtaa farmaajo ma aaminayo wuxuu leeyahay ninkan qabiilku ka dhasho shiiqaal ah ayuu rabaa in xilal loo dhiibo xilal badan si fiican ay maqlayaa si fiican wallahi waa riile shaq abuu karo adeerka inaan wax ka sheego hal kamii laakiin waa sida riile xaqiiqda ah adeerka shaq abuu karo wuxuu yiri habar gidir xilalka ka qaad shiiqaalna wax xil u dhiibin haddaad xil u dhiibtay shiiqaal dowlad carq waa kaasay farmaajo daabar dhashay qof shiiqaal xil u dhiibo waxaaba laga dhacsiiyaba dowladdaadu way dhacaysaa haddii qof shiiqaal uu soo galo habar gidirna waa inaa ka qaadaa kuwa xilalka haya abgaal waa inaa ka qaadaa marka waxaa la yidhi habar gidir abgaal waxaa ku qancisaa xilalka qaar u dhiibo meelaha hoos hoose dadka lafaha yaryar ee habar gidir abgaal ka dhashay kuwa yaryarka ah xilalka u dhiib shaq abuu kala dhahayo adeerkay ah anigana faal kala dhiga marka shaq abuu karow adeerkayow shaq abuu kar faalkaaga iyo faalkayga qofka guulaysta waaye farmaajo saan hadduu ku socdo san ma sii jiraayo shaq abuu kar oo faalkaa dhigtay iyo faalkayga midka guulaysta adeer la arkaa adeerkay tahay iga weynta waa ku ogolaa muddo arrimahan faalka iyo waxaan kusoo guda jirto waa ogay la taliyaha arrimaha diinta in lagu magacaabaa gaartay haa laakiin waxaan kuu sheegayaa xasan adduunya waa ku salaamayaa xasweli abukar iskaay u sheeg xaaladiisa waa qatar wallaahi billaahi tallaahi gaafowne haddii abukar iskaay uu dhinto mursadaa dilay intaas u sheegaysaa hadduu abukar iskaay dhinto waa nin abgaala mursadaa dilay mursade ayaa dilay marka sheekada meesha samartay waxaan rabaa inaan la hadlo nimankaan la yidhaha habar gidir waraa habar gidir si fiican ii dhegeysta aniga waa yaabanahay horta qabiilkan maxamed siyaad barre uu ka dhashay sicirolka shaq abuu karo la yidhaha waa adeerkay waxba yaa laga sheegin adeerkay waa nin fiican shaq abuu karo laakiin wuxuu ku qaldamay inuu yidhaahdo lafaha yaryar ee habar gidir ah xilalka u dhiib lafba laftay ay ka yar tahay haa gaalajecel systemkiisa ka dhex muuqanin abgaal lafaha yaryar u dhiib shiiqaalna dowladdaadii yeesab soo gelin shaq abuu karo inuu yidhaahdo farmaajo qalad buu u sheegay been buu u sheegay calaykum salaam ugaaska cadde ugaaska gaalajecel habar gidir midaa la yaabana habar gidir ay dhegeysta horta aad baan idin canaananayaa habar gidir dad caqli badanaatiin habar gidirow dad caqli badanaatiin waa fiicantihiin laakiin mid baa la yaabanahay habar gidir meel baa laga haystaa horta soomaalida waxay dhihi jireen mariixaan iyo habar gidirba international community-ga ayaan ogoleen in xilal loo dhiibo soomaalida waxay dhihi jireen habar gidir iyo abgaal international community-ga ma ogoleen xilal loo dhiibo warkii beenay ahaayeen waxay iska dhadhacsiiyeen oo been ah hadda waa kaas ninka la yidhaahdo farmaajo mariixaan ah yaa madaxweyne naqday laakiin waxaa la yaabanahay habar gidir markii mariixaankii las dagaalay oo mariixaan oo maxamed siyaad hogaaminayay iyo soomaalida kale ay isdiriirtay oo daarood iyo hawiye iyo dir iyo loo kala baxay wixii mariixaan waday oo taageerayay oo isbahaysiga dooxada jubba ee kismaayo mariixaan kismaayo ku celiyey kismaayo la dagaalamayay waad ogtihiin daaroodka isma jecla baa idiin sheegi maayo daarood isma jecla murasada afkaa kala baxay tiri murasada ma haysta aniga laakiin abukar iskaay dila gaafo murasada dila mbeentaya mariixaan waxa taageerayay waxay ahaayeen habar gidir hadda mariixaan inaysan dad ahayn idiin sheegaya xataa way ka hadli waayeen dhibaatada socotay waxaas dadka in la dulmiyo ma ah dadka in la dulmiyo mariixaan oo ma dad gub baatihiin nasab baatihiin daba casar oo kale idinka dhasho waalan xataa habar gidir buu naclad ku riday shiiqal buu yiri qoomulud way hal qof oo waxa waayay mariixaan oo yiraahdo war daba casar uu qaldan yahay war daba casar ilaahay wuxuu ka hadalsiiyay naagtu qabi jiray uu ka hadalsiiyay taas ay dhaatay gabadhaas u baahantay ay dhaatay waa ka hadli waasay xataa cudurdar waa ka bixin waaseen isbahaysiga dooxada jubba wixii horboodayay oo la socday waxay ahaayeen yuusuf miraseerar allah u naxariistee maxamed ninka la yidhahdo allah u naxariisto generaal goobaale iyo cabdullaahi macalin loo shiiqaal iyo waxay ahaayeen waxa garabka sii jiray habar gidir
waad ogtihiin niman harti ah iyo kablada isbaysto General Morgan hogaaminayay inay maryan calaykum salaam mujaahidada waxa ka xumay Yaasmiin Galmudug Facebook-geeda waa waayay gabadhaas Yaasmiin Galmudug maryan waa in loo gurmadaa gabar fiican bay ahayd Yaasmiin Galmudug Facebook-geeda in waxa u maleynayaa kooxda indhaha istirtay qabyaalada u dhisay Farmaajo ay Yaasmiin Galmudug waray Farmaajo aan lacag ku bixiyay in la weeraro oo Facebook laga xiro laakiin ana agteeda ma karaan waxaas oo kale loo buufiyo iska jira habar gidiray idinkii shalay taageeray Mariixaan oo nimankii la dhasho qablada xodaaroodka markay Kismaayo ku soo weerareen garab siinay nadar xasan ku salaamay abti adiga noolaaw nadar gabar fiican baa tahay idinka siinay okay galguduud waxa ka dhisteen walaalaha galguduud oo Mariixaan iyo Ceer ah meeshan jubooyinka idinka taageeray war maanta aaway Mariixaankii shalay aad wada socoteen oo Mariixaankii shalay aad garabka siinayseen wiilasha intaas oo habar gidira intaas oo sheeqaal ah ay ku dhinteen intaas oo gaal jecel ah idinkoo Mariixaan garab siinay ma aragteen ay ku dhaaya hal mar waa ka xunnahay tacadiga Farmaajo u geysanay waxa la yiri lafa aweyse hoos bay ka wada xiriiraan idinka shalay gobolka walaalaha galguduud dhisay idinka habar gidiray shalay Jubbaland iyo isbaaysiga dooxada Jubba ku taageeray Mariixaan maanta waxaan maxay tahay maanta see ku dhacday in dekadii Muqdisho waxa la magacaabay oo maamulka hadda ma Xasan Cali Khayra inaad reeyo gacay Xasan inuu soo waxay baahin waa ogahay Xasan Cali Khayra wuxuu gala malaha idinku idii xisaabsan yahay Xasan wuxuu yahay wallahi soo xisaabsan Xasan Cali Khayra laakiin waxa la yaabanahay waxaan intee ka socdaan qaladka intuu ka jiraa laakiin hadda wixii oo dhan wayba soo afjarmeenba maalmo kadib waxaad arkaysaan bilooyin kadib ilaahay idinkiis Farmaajo meesha laga saaray laakiin Farmaajo takanada uu abuuray reerku ka dhashay waa takana xun waad ogtiin ortiyaan lagu fikirin maanta inuu Soomaaliya dagaal ka dhaco yaaba dagaalay maxaa lagu dagaalaa ma xal dagaal sheegay yaa dagaalay xawar ma joogaan reerka Farmaajo ka dhashay yaa dagaalay wax is dagaalay ma jiraan laakiin baarlamaana meeshan jiro waa laga qaadaa abti macaan ilaahu rabbi raxuna xasan sheekh noo soo celiyo maanta maraysa baash ilaahu xasan sheekh noo soo celi hadda waaba yaabanahay wax la yaabo aan la arkin Shaafici loof abti waa arkay islaanta daba casra keentay nin culus baata islaanta daba casra meesha keentay ilaa hadda la yaabanahay Shaafici loof abti ku yaankaas Shaafici loof ah Zaare Axmed oo salaamay adigana orda daarood iyo hawiye is dagaalay xamar ma joogo yaa bin uu sheegay daarood iyo hawiye is dagaalay waan laga soo gudbay xilliga xabada iyo qoriga iyo hadda afka laga hadlaa afka yaa laga adkaanin yaa laga badinin yaa laga hadal badinin ee maraysa maanta laakiin maanta ma jiro daarood iyo hawiye dagaalamay abti maanta afka lagu dagaalamaa waxa lagu dagaalamaa isheeg baarlamaanka abti lacaga shaqeynayso maanta hawiye daarood yaa lacag badan runal rabaa runta yaa lacag badan ayaa ku weydiiyay yaa lacag badan meeshan waa lacag ninkan Farmaajo ah asoo u jeed indhii shanta ah wallahi billahi tala in qorta laga soo qabto alleeyahay Mareykanka iyo wariyaa ninkan jaaliyad laga dhisay gobolka uu degnaayo maamulu waay jaaliyad laga dhisay gobolka uu degnaa ayuu maamulu waay hadda see Soomaaliya u maamul karaab idin la yaaban waranka assalaamu calaykum la xataa ma aragteen assalaamu calaykum xataa ma dhaho bismillaahir rahmaanir rahiim waligeey waxaan la yaabo oo aan kala yaabo waxa kamid ah asoo bisinka qabsanay xataa waxa la yiri cuntada marka cunaysid waa inaad fiiri حديث وها حلو ليه بسنك قبو قعنت ميدن كحول بسنك هذا واحد والبو بلاوس أنا بسنك بلاوس نكان بسنك ما قبصه نكان أوجه دانو فرماجة هذا وان إسك ألمانيا مدحوينه هنا مدحوينه فرماجو هذا وكوسي درس قبيالات نبى نك كل يتنون كانوا سنبلوشي حوالده قصة حوله وان إسك الليتا وحبك لوجين سنبلوشي ونوك كان مثل أنا وتود جوالك هذا نكاس إلك أقوى أيو مقعاوي أيو كقاعد متقانين نسعد وكقاعد ورسعد أرتم ما بأرك كرابة شيقال إسكبر طاف أنا سعد رد الرفرباجو هبقي رد ورشيقال معك رفتاه ورني كان سحر لوجي شق أبوكر اللي هذا أدرك ريرو سرانكا كل جوج شق أبوكر والله بالله تلا بين بقوشة سيستم كاجا عدي شيقال لو قد حركه وحيري قاطع بالكورب إلهي بكل دارشي علماء شيقالات وأنا أركتين شرفك إليه وأنا أركتين كرامة إليه وأنا أركتين حتى نك ساس وجلاي فرماجة أفر فاتح الله مري إنه إلهي هو يبقى وكريدو هو يبقى هو يبقى إنه إلهي كريدو وحو حتى نيو
haddana iyo dowladdiiba waxay noqotay سيدي أدير أبتي هذا حاجة على حالنا إليه دين وأنا السيستم كدولة نمو وحوكم ما يستوى أنا سيستم كدولة نمو وح أنكو هيستوى ما جرت دبلة أو نذا هذا أوجه دار أبتي أشياء أيهين وح أي كويس تان ملها ورياه ده كده مقدسو مراكب تقصوا حيرة سنت مركب شيقاء إسكاله جناح سيج بلارنا الصومالي ولنا دبلة إسكاله habar gidir dabaqyada magaalada ku yaalo dhan ay leeyihiin abgaal goofka leeyihiin la dagayay gaal jecel caaniye keenan war farmaajo haddii aad xilka u diiday aad waxba siinaynin war abtiyo macaan dawladda say ku jiraysaa haddii maanta aan loo keentid niman hartay oo Puntland ka yimid Puntland abtiyo macaan nin sixran baa tahay nin aan xishoonin baa tahay waxaa tahay nin aan dawladnimo rabin waxaa tahay nin aan hore u soconin وحتى مدحويني أقص الناس أتاي أنا أقول هذا أقص الناس أتاي متك ضدك وقول لي تاتاي مدحويني محايا لو الدولة نمدي وحن كويس أنا مرا قبيالات يقول وحوضا ما أنت وحن سعنين والقبيل إلهي ومهدان نعدد حتى مو سعنين صدق ولا حال يريد شكل واحد ولادك شق أبوك راح أيدي وذي شق أبوك ولا شكليس بأيدي وذي محمد سياد هذا كله حال يرالي أصين اللي يجري جنرال لقلقة صاحبي أحيان ده العيدين بريجر اسكو في عناية مركز وحال يري خذ فالك أوتمن هذا نيو فالك أي كلام كولا أديك تانا أملي وحال يري جنرال محمد إبراهيم لقلقته وأنا الحركة قاعدة ست لخساء هذيك الدولة ده ميسي جريس جنرال محمد إبراهيم لقلقته شيء قالها وحال يري محمد سيادة وأنا حركة قاعدة هذيك الدولة ده ما أهم من سعنيسو مال إيجاري سنة مجرته لقلقته حلقة قالوا الحالي روا أنا حرتها جنرال عيدين يكون عبد الله يوسف هذيك الدولة ده مسعنيسو دولة ده مسعنيسو سيدي وسمي محمد سياد طبتي وضدي محمد سياد أيو كنت أجي يعني كان وذات كان شق أبو بكر اللي يراد الحوير الدبل إسكي يلالي هذا والله أنا بيدي شيء وذات كوادر كي لكن أنا جنا فارق لا بيجي فارق لا يعني بيجي فارق واحد يصاب بحي إنه سنفر ماجسي جرين مدة سنة حدو سن حلالك أقوم يمسن أوسن سين الشيقال حبر جديد ذبلي أبقال قال جعلي حدو سن سين والله فارك دقوا وصباحا أنا أذكر شق أبوكر عند فارك قطر كوا ولا أركع شق أبوكر بين بوشة أوديك الشيقال كأي لحتو يجوجو والله بالله ترى بين بوشة ومقع ولا تري على بعد دينت هنا هذا رجع عليه فرماجو مدحويني wadada ku socotid waa wadadii maxamed siyaad boqol mar hadda kor waa ka hadlay dadkan waxa uu maqashaan idinka war goorma hadda dadkii inna loo qoos iisoo gaa xilin arabow nin fiican aad tahay arabow naqwa ina adeer maxaa waa ku salaam guul insha Allah fiiri waxa leeyahay murmeeqa idin sheegay ninkan war ninkan sa u maleynaysan ma aha war ninkan hor u socod marabo war ninkan hada ninkan la haysto waa farmaajo waa inaad tiraadaan kulligiin hadhaco كل فاتحة وآخرية إنه إلهي سيد دقدقة ماشي كاقاض وحاليا بنا ريركا أرد كهوية أي مرصدة ولا الأرض وحارك نين وارنا وحارك بدار له إسلو اللي هذا مريكا كجوه مرصدة واشي حدا سؤال الله أساسه الله يقول يا وأنا على روقع علي مرصدة ضد في عناتين أرد وحالتين قبت هويتين وحالتين أرد كهوية لكن بدبا إنك غلطان بقول مرة واحد شيء إنه الدولة النماذج الصومالية مدحويني الوزارة القدومية برلمان وايد كرسي جماعة أنت كان مريحان كأي أسفل كيس مريحان كأي مرصدها اللي سيحس على غيره وكرسي هوية إذا كقارن هالنقطة نمرصدها هالنقطة مرصدة وايد أوكي مرصدة وايد جدا لكن أجادة دولته ومدحويني إلى الوزارة مدحويني إلى الوزارة مرة البوحة أود إسكاله مدحوينها ورشري وحا مدحوينه سومالي كأها عبد الله يوسف وحا وزاره نقل علي محمد قيد نور عد مره وزاره اود ما لهين وحوين نقنين اوكي وحا مدحوينه نقضي حسن الشيخ محمود وحا وزاره نقضي شيخ شريف مدحوينه نقضي وحا وزاره نقضي عمر عبد الرشيد عبد الله قاس فرماجهان اي انت اماو وحا نقضي حسن الشيخ محمود وحا وزاره نقضي عبد الله حيرن ومريحانها ساعد ومريحانها عمر عبد الرشيد ولي ما ارك ريركاس دارود او تاغيراي دولده 4 iyo 20 ka dadkii naqdinay lama arkin waxaas waa ceeb murasada waa dad sharaf leh waa urud kaawiye lama diidano laakiin garab qabashada iyo horboodka ummadda ka dhaafa
dowladnimada dadka wada leh habargeed xaq ma qan weersan kartaa shay qaal xaq ma qan weersan kartaa gaarjac xuquuqda ka maqan weersan karaan xas al khayr ma weydiisanayna farmaajo weydiisanayna farmaajo madaxweynaha dastuurka Soomaaliya aqri waxa awood iskale mar walba madaxweyne laakiin shalay lama arki jirin reer Puntland oo taageeray dawlad ma aqliga la adin idinka shalay markay reer Puntland wasaare ay haayeen iyo reer abadu waa qeyrar garbahaari lama arki jirin daarood taageeray dawlad runa idin sheeg ana wax la qariyo ma aqaan ana waxaan jecay runta in la sheego iska dhaaf horboodkan iyo wax ina waxaan waxa ma qofka waxa waaye qofka markii dambe waxaan la arkaa in idinka xilka nugu cusub yahay xilka la dhiibay inuu idinku cusub yahay wax cusub dad xatiin waxaan ka horeeyo xadaarad leh oo waxaatiin waxa idinka dhashay ilaahay kuma samadiiday maxamed Cusmaan ka hor ii sheeg dad badan idinka dhashay al wardhigley waxa dhow taariikhda mursadiyaa soo koobi kara marka idinka yeesan naqanin dawladnimada inuu idinku cusub tahay xilku inuu idinku cusub yahay yeesan naqanin waxaan ku faraxsanahay in xildhibaanadii hadda Nairobi ku shiray uu ku jira gaafo mid kale la shay mustaqbal inay u socdaan hadda xildhibaanada inay mucaaradka u socdaan shirka wiya joogay xildhibaanada mursad waa ku faraxsanahay xildhibaanada mursad wax eeda ma laha Abdulla Qanyira joogay oo Maxamed Qanyira uu dhalo xildhibaanka mursad Hawr Maxamed ah mustaqbal waa joogay ina gaafo waa joogay xildhibaanada waxa joogay dhagdheera joogay xildhibaanada mursad dhan way joogeen kulanka wiya kama maqleen kulanka wiya xildhibaanada mursad laakiin waxa jiro kuba yar oo Facebook isticmaalay email-ahan ka qalqaliyo aan wax ta wax loo jawaab aan dhameen odi bidaar leh Mareykanka ka soo hadlo ana kaas waxa maqlay inuu yahay ii sheeg nin Marixaana uu yahay laakiin mursad iska sheegtay sharafka iyo ciziga mursad yaa lagu dheelay mursada waa hawiye waxa mar walba wax la qaybsanaya hawiye waxay kuraasta ugu fadhiyaan waa hawiye kursigan lagu fadhiyo waa kursi hawiye inta su'aal daba casr waxa iga gaarsiinaysan daba casr waxa leedihiin waxa u sheegaysaan niyow sharaf aan leedahay malaha karaama aan leedahayna malaha cizi aan leedahayna malaha xashiishkaaga meelaha ku cab masaajidada beenta ku qaraabo in adeerka farmaajo uu ku soo dirana iska qaado meel fadhiiso maalin dambe haddaan ku arko adoo qabiil Soomaaliyeed caynaayo wallahi billahi tallahi Facebook way ka baxaysaa waa lagu weynaa dad waxaan ku leeyahay jooji qabiilada Soomaaliyeed aan nacladinays war markii fi ani wali inta aan noolahayn laga ma yaabo in qabiil Soomaaliyeed aan nacladeeyo oo naclad aan ku rido ilaahan ka mangale inaan u bareero oo caayeen ilaahan ka mangale laakiin anigu waxaan qadayaa xuquuqa iga maqan xuquuqda alaysiyo war waxa iga maqan aan helo war dawladnimada xuquuqan ku leeyahay xuquuqda isiye war waa dhibaataysanahay war xilalku waa loo diiday war meeshii waxa qabsaday reer Puntland ay daarood iyo Bariixaan iyo ogaadeen xataa waa la dulmay warna gacay Kismaayo nin ogaadeen waxa dawlad yiraahdaa ku habsaday cid wax uu ogoliyahay cid wax siinay cid ma jirto war dawladnimada saan ma ah war Soomaalinimada saan ma ah arintan waxay dhalanaysaa wax xun bay dhalanaysaa awaq xun bay dhalanaysaa laakiin ninkan daba casr liiray kuntan ka jiray abahay like afar ila 20 ka sac inuu meel soo fadhiyo qabiil Soomaaliyeed aynayo oo dhahay in mursada saan ah oo islaanti madax farmaajo uu qabay Zainab ay ka baxsan laadahay oo qof walba aynayo oo dhahay ii sheeg qabiil Heblaaya nacad ku dhacday meel Heblaaya in adeeryaal oo gacay ninkan la hadla ninkan xirxira ninkan qabta war ninkan daba casray waalan ilaahay ku waalay wallahi su'aalna haddu saraakin run waalna hadaan waalin nin miyi waxaan wax ka qabto umada runta u sheega daahir waa ku salaamaya boqorada jamaad jeesta u jeeda ku salaamaya jamaad jeesta noolaw jamaad jeesta aa mursada waa la hadlay mursada ka dhalatay adiga waa la hadlay aniga laakiin lagama yaabo aniga waxayga waa siyaasad laakiin lagama yaabo inaan qabiilka wax aan ka sheego shana ma laakiin waxa idin leeyahay dhageysta maanta meesha joogtaan maanta wadada la saaran yahay wada sax ma maanta macantada jaceelka maxay tiri jawiga xamar oo ku salaam walaashay macaan ilaahay ku xifdiyo daba casar uu wacel waaye wacel uu egyahay war wacel mee waa wax matare finish jawaahir waa ku salaamay jawaahir maxamed marka waxa idin leeyahay arinta aan idin sheegay agaasimaha radio shabeellana in la dili rabo yaa la dhayalsan wallahi billahi tallahi waa ogaan doontaan haddii se la dilo gaafo waa dilay gaafo ayaa dilay ay gaafo waa saaxiibkay waa oday adeerkay laakiin asaa telefoon ka wacay oo yiri waa lagu dilayaa haddaad ii noolaatid yiri maantana
waxaa soo wacay qolada sirdoonka waxaa la yidhi xaalada waa khatar waa lagu dili rabaa is ilaali marka waxaa rabaa beesha murursade inaan ugu baaqo jenaraal gaafow la hadla waa ceeb hadduusa dila abuukar iskaay waa nin abgaalow jenaraal gaafow murursadaa dilay wax la kala qariy meeshaan wax la kala qariya maaha ayaa gaclay maalin walba al-shabaab wax dishay maalin ilaahay ka al-shabaab wax dishay wariyaa wax madii sheegaa al-shabaabow al-shabaabkaad arkaysaan naftirkiisa qabiil ah al-shabaabkaad arkaysaan wallaahi bilaahi talaa waa qabiil weeyaan baaq baa u jeedinaya qabiilada ku jira waa la ogyahay qabiilada ku jira habeen dhan waa idin aqli doonaa laakiin hadda xilalka ugu waaweyn yaa ka haya mataqaaniin beesha curadka hawiye ah ee hadda facebookyada meelahan isxijinaya dowladnimada xilalka ugu waaweyn al-shabaabka la sheegaba eegaa ka haya intana waxay rabaan hadda waxaas saas caqli ma aha inaad gaclay farmaajo waan tuuraynaa iska qaada dowladnimada laakiin waa inaad dhalinyarada meeshaas ku jirta aad keentaan علي محمود راجع على الدار يجي مرصده وإسرافيل سينب تفرماجو قايل صدح أبيك صدح أبو حسين على فيديو يجي حد وزيرك ورفافنته على الليرة أوكي إن حسين على فيديو يجي وهور محمد محو قابل سيء ووزيرك أرمها جده يا رشاب وزيرك أرمها جده يا رشاب ومرصده وهور محمد أوكي نك قراحية هبك واحد من قابل سن نك هبك أنا واحد قابل سن متقانين قرقابة اللي راهو مرصده نينك قراحيده waxaas qaabilsan ma taqaanin timjil cali yiraahdo مرصده duduble waa tiq xilalka ugu waaweyn habar gidir saleebaan tiq markaasaad wax maqaar saaro nin dir ah Axmed Diiri la yiraahdo oo dir ah ayaa ayikii hogaaminay riyaam waxaas aqli moodaan ka soo baxa waxaas al-shabaab ka soo baxa ka baxa habar gidiray ilaahay kuma samadiiday dublow murashadow ka soo baxa al-shabaab idinka ugu badan xogaa waxa ku yar qolada la yiraahdo sacadka laakiin xogaa waa laga helaa jaajab ah ka soo baxa meeshaas qof hadii la dilo qofka dilay qabiilkiisu aan la ogaadaa waxa maali ilaahay keenana laaynaysaan qaraxiyaan ugu dishay wariyaa maalo hore warshada nan camiya warshada meeshaas meeqa ku dhimatay ninka isqarxiyeen Kismaayo laga soo diray Kismaayo laga soo diray Axmed soo diray shala lagu dilay oo saddex sheeqaal ay tahay labana gaal jecel Jubbaland ay u socdeen oo saraakiil ah oo midkiiba gaashaan la sareeyay ha Axmed soo diray waa soo beenaysaan waa keenaysaan oo isqarxinaa qofkii wallahi bila ina shaqada dheera kamid Allah u naxariistay oo gaashaan la saraa nin kale loo boga ku jiray saddex sheeqaal ay laba gaal jecel ku dhimatay oo Kismaayo u socoto Axmed duulaan ku ahayd rabtay inay jilib xurayso kadib jilib saldhig weyn laga dhiso Axmed la aado Axmed Madoobe iyo meesha waa naga disheen nag okay maalin hore nin generaal ah ayaa qarax waxa lagu dilay Makka al-Mukarrama waxa ka sii horeeyay generaalka Abgaal maalin ilaahay keenay man laynaysaan war dhalinyarada ka soo bixiya idinka dhista wax ka war waxaan san ma ah fiiri hogaamiye ugu horeeyay wuxuu ahaa nin Isaaq ah oo Cabdi Gulleeda wuu dhintay waa la dilay waxa loo dhiibay nin la yiraahdo Axmed Diiri oo dir ah hawiyaha aawe hawiyow idinka horta maxawaanatiin waalantiin mafiyowdihiin warin Axmed Diiri la yiraahdo loo dhiibay oo dir ah shalayna waxa ahaa nin la yiraahdo Axmed Cabdi Gudano oo saaq aha waxa ku xogeen u ah karkataan la yiraahdo habar gidiro eer ah karkataa maxaa ku xogeenimo ku geeyado hogaamiye kara ka soo baxa tuugadu dhasha maali ilaahay kan rabto in aanaka nag naga dhigto maali ilaahay kan rabto in nag naga dhigto nag wariyaa ma maqasheen beedhawa wax ka dhacay mashruucan deegaan ka socda idinka ma fahmi laadin horta maxaa beedhawa loo qaxilay oo maxaa Kismaayo wax ugu dhacday oo maxaa Boosaaso wax ugu dhici waayeen maxaa Garow wax ugu dhici waayeen oo maxay gaalkacay wax oo maxay ugu dhici laayihiin Burco iyo Boorame iyo Hargeysa maali ilaahay kan idinka mashruuc noqoteen idinka isku soo hogaaminay dawladda farmaajana waaridina way dhacaysaa markay dhacdana al-shabaabna way dhacayaan oo wallahi bilaa talaa inay dhaarana aqli ma waxa socda aqli ma waxa Soomaalinimo ma waxaas waa waxa la rabo in anaka lagu baabi'iyo wariyada maali ilaahay keena
قف فيري قف والبولة دي وهوية قف والبو حمر كنت وهوية سعيس قرقاتان نقضه محمد قرقاتان نقضه محمود قرقاتان نقضه وهذا قرقارتي واحدة منها كل قرقارتي وحس صومال لما معه وحس عضا وحس صومال لما ظاهره معه والله بالله ترى وحس صومال لما معه هل قبيلة الله ينا قب 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 حتى ولا لروحاس روح إذا الله اسكت اشتا على الإسو هجان على الإسو مانتا وحي أباهين غير مقدشو هجامية وآيه هذا دنا هذا سياسة يمد أمني يمد الأقالة كشقية إذنك واحد إذا كانت الأقالة بدل مجرو في رقفك دوس إلهي أدوديسي أوديسي دوسين هوي والدمير وسوقر من عشان شباب جبا وقرنتاي هو إذا الدميرة هوي الدمير معه هو إذا هي الدميرة أنت سنقوليه والجواب على إنه سيء مضنواي حي لي قبيل أنا وصومالي على الدمير واي بحرك وحنا كسل إنه إذا اللي الدمير واي هو إذا إنه يجي هذا الدمير إيه كسلن مركز قبيل الصومالي أنا الدمير على سيد كده عصر اللي هذا نعرض كل على أوكله وهوية على كل أساسا نعرض كل على فرق يسنجي ماشي كيمي سيك ذيك عقل جين فيري وريا مالي إلى كان حتى هذه هوية فتمدو هوي ما أنت محلين ولا لهن صومالي حاس تي صومالي ولا كان قد شلي إيه سنة هوية فتمدو قول صومالي ولا لهن قد قول ما اللي بدوبي قول ما اللي شيء حفالة سياسة لا جري حفالتك وصعنا يا هوية فتمدو شلي سين فتمدو إذا كان فت عد هوش مركب أساسا كوسعوني سنة لسكو هينا شال مركو حسن الشريف جوي ومعارض يسن أفر لا تصع كوان حد أكاد السينيسان دو عسر والعكت السينيسان إنه كان سلمان اللي هذا تركي الجوي إيو عبد الناصر صولم كان بدار طلعي أي كاشلي أفر إلى ما تكسر على الشيخ محمود عيناي أو وحكي الشيء جاي عم باريناي يا وهلاي يا كجواباي يا وحكي الشيء جاي وروح الله يا بنات شذوك له محمد حسن حاد انتقاني محمد حسن حاد إنه غيره مجرتين وملهن جوا ما له روعي سيف عيد جيست إنه مجرتين أي وعي وحير إذا عدى وحوى عدك ومد الصومالية وحقبك كجرا نودونك جود إيه نودونات الصومالية نودون محمد حسن حاد حد عنق وعي عنق مجرتين وربنت له عنق مجرتين ورب حلي هذا هذا حلب حي سمدون ميا وحب ولا بحي نك بال توقع أفر إلى بعد تكسع وياك عجروها حش مركو جوي شريف نك أفر إلى بعد تكسع بنت إيو هذا إيو هوي عاي إيو حسن شيخ عاي شريف إيوها ور محمد حسن حادو أودي أنت أصلعك صدوق أقبل إلا سرو لي هذا عدك بير عوا إذا عد عدك ومدرسة وإذا عد عدك ومدرسة أنت كدرتها بحال اللي محسن حادو هذا حد محمد حسن حاد دي ونقدين إيش إسك جلبيسانو رزدار نمد يكون صوت هينا وحكى له موقت عند محمد حسن حاد والله هو قدوميه أدياش هوية قدوميه أدي هوية معه أحمد ديرين أفيان بلا هوية معه والله بني إنه عاوش شقيستيال عاو مال الله لما شغل لسان قليه أنا عاو إذن الله يا محمد حسن حاد قدوميه دقن وقاس مرصدة معها نبضون مرصدة معها قرم نقد قدوميه دقن كبلا هوية أحمد ديرين wuxuu ka dhashay Saleebaan Reexisi qolo la yiraahdo Reexisi wuxuu ka siiyay Maxamed qolo Maxamed miya wax la yiraahdo ka yahay hatta nabadoon Reexisi hatta ma nabadoon Reexisi hatta Axmed Diiri ma nabadoon Saleebaan iyo nabadoon Habriil iskalaaf waa laba nin oo caada qaatayaal ah ana caawo idin leh Maxamed Xasan caadna waa caada qaato hawiye ma talo ninka weyn oo 90 ka sano jira 80 ka sano jira in cunug yar oo ma jirta inuu wax yiraahdo waa idaacada codka ummadda Soomaaliyeed Facebook-gida lagu soo geliyo hadal dawladda taageersan أنا هي اللي جنب أوراً وأذيك محمد حسن عادو عد كنت محمد حسن عادو دولة كسر جديد ولي والله فيسبوك ماركين أو ويبسايت ماركين أذيك لكن أجاو دقن هوية ما متشت مع حسن عادو نم مرصدات هاي عرض كهوية كده رتي نم بايش اسم مرصدات كراشات هاي وجاز فرع عد وجاز كمرصدات يا كحل كرم مصير كمرصدات يمت كهوية أذيك وجاز متيت دقن متيت أحمد ديريو أذيكنا أفيان هوية متيت سليمان باتاي ريحسي باتاي قولك ugu siira ka dhawato waxa tahay mala ana caaw kule maxaa yeelay waxa tiin niman calooshooda iyo dhuuntooda ka hadla bis dhuunta iyo caloosha ka hadashan wax kale oo ka hadashan mala farmaajo afka idii buuxiyay dhaqan aad madashaan iyo wax aad tihiin iyo cid lacag ma jirto ana caaw idin leh
قال جعل ما تشان بعد عدم ما تشان شيقال ما تشان دبل ما تشان ججال ما تشان وججين ما تشان أبقى ما تشان هبرقدر ما تشان مرصود ما تشان إذا ما تشان ملا لقن هوياتين ملا حتى نمن هوتيل سفاري اللي قبل حيو إدي الشلة إذا سيسا أياد لسمنتين ورساك كل عاد عنق يرو رير بنتلان إنه كصوعه إنه ترى أو كذا إذا عاد أمد الصومالية وهذا حتى عس نبضونك حتى هاي حسن أحمد صلاة قلبك وسلام يا إن لو قال نبضونك وريا وحدتين مرة هاوية ما تشان أحمد ديري حلو أو أنا إلى الله والاحترام والقحشة والقحشة ما حشوطان لكن هاوية ما تهين إذن لو حقصوا عن بحذين دقالكي عبد الله يوسف الله قال ما أنت ولا ثقب صدي ولا ربي إن إذا عذاب لقاه الله ميلاد الله اللي هذا وردتك الظلمن حقه ده هلا سيو حادي أحمد ديريو وحكتر بتن إن أنت ممكن يكون لباتك يكون أسكا قالتان لقنا متين نمن وحاتين لعقته أسكا قاتا إندورون أبتي آدم كوسلام إندورون عليه فيري وحاتين نمن لعقته أسكا قاتا وحاتين نمن على وسط أشقايستا وحاتين نمان عن هوية إذا مثلا وريا ما عرفت إسلام بشير أو إسلامك بجرتنا إسلام بشير أو إسلامك قوي بجرتنا عمر محمودة إسلام بشير والله ما عرفتين إسلام عيسى والله ما عرفتين حقيقة كهالشيء محاتين إسلام نمتين إمام نمتين وقاس نمتين وحاتين مرة إمامك مدلول إمام محمد يوسف إمام إدريس أنا إمام متين الكملي إمام متيد كمله لكن مين كليه أرتا إمام كمدلود هاجري إمام محمود إمام عمر هاجري إلهي أقول نحريستو الجنة دي فردوس إلهي كوراوي إمام محمود إمام عمر وول أنت لحالك ويلكي سأسكاله أديك ماشي أرتوا كوسيما خطايو لحالك كوريج وعن كليه بدردارك كوج جدنا إمام محمود إمام نكري إمام محمد يوسف عن الله وحتى إمام محمد يوسفو لحالك كان إمام نمو إمام كهراب ويلك إمام محمود إمام عمر ودلي أديك غير إمامنا متيد نم محمد يوسف بالولاده محمد يوسف هي محمد يوسف ما بتيد بإمام كسيما تاي وعن كليه هي إمام محمد يوسف عدة إسكاله إمام نمضة كوريج إمام نمضة كوريج أنت عن حق لقاء قاعد حسنات أنت سأقوله لكن أحمد يحاد مرضى بيان لا أركن أيكو كهلا مجا قوية مت كان ومرصدة لقد أمها فرع الدعوة مت كان وسليمان وقاس يا الله سليمان يا هبرقدر نجا عامس والله بالله الله ديك ولا الإنكار مرحون كبح توجيه وحاودان دخلنا متين هبنا أنا ستوس وقصوا الله يا وقت قاعدين وإحنا له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت إلهي ذي حفظيه إلهي ذي بركايه وحين الله يهي قول إن شاء الله صوماليا فرماجنا وورد عي وهذا فرماجو داون فرماجو داون فرماجو داون فرماجو داون وورد عي فرماجو إذ والبنا إلهي براتك أوسالو وحي عن قفي نفس الدين الشيطان وحن صحين إلهي حقي سي أهادين قوليستا إن الله يهي كرسر آدم كو سلامة يا لما أنت أن سلامة يا كفايشي واكو سلام صاحب هذه وعن حاجة وكو سلامة يا لما أنت أن سلامة يا إلهي ذي حفظي إلهي ذي بركة نذر آدم كو سلامة يا سيشر قرية فيديو وقت قاعدين وعن هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاسك عدى نولا وانكوليه كيف دبا عصر محاد ثلاثين كيف دبا عصر تي شرطة فرماجي يسحر كيسنا إلهي أنها هرير مريو شرطة فرماجي يسحر كيسنا إلهي أنها هرير مريو يفعل كيسي بخطي يا عدي سحر يفعل آمنتا هذا الدين توحيك قبط والأقية وقتي هذه وعناضو أيان عمر سلام سري أو سلامة يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتين وما تنتين